kulanti wacan wanaagsan daawadayaal hadda barbarkayga waxaa ku sugan Xasan Cali oo markaasi maanta u tartamaya gudoomiyaha ururka qaranada Jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhawow Xasan saaka waxa la gudagali doonaa amaba maanta tartankiiba adig iyo shakhsiyaadkii kale ku tartamayay baa la idin qaadi doonaa codka waxaan ku sugannahay goobtii ay doorashadu ka dhacdaysay bal maxay kaaga dhigan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa iga dhigan tahay farxad aad weyn iyadoo ururka qaranada Soomaaliland maanta 20 jir yahay والله أساسي لبض كوني أفرتي ما أنت لو مريو مرحلة هذا في عن ومريو حمله وقبضنا قرينا ذا هنا يمكن قريب جليان ما أنت ويدلنير يضد يضد مقارنة سوا وين بيسوي شران أتبان وفرح سنة هاي وحنا حبناها كرت شينية ويا رمضان أور كولي هاي درتد إن لا يقول دورته ويعود كذي سين دونان أغلبية قرينا السومالي ayaan aaminsanahay saasay iga dhigan waqti yar oo kooban ba kulli codayntii ka hadhay maxaad is leedahay oo dadkan ergida ah ee ka soo qayb galay shirweynahan igu doorta waxaan leeyahay waxaad igu doorataan daacadnimo iyo waayaaragnimo aqoon iyo waxyaabaha baan cid dadka ma dheeri oo malihi waan idinka aqoon badan laakiin waxaan leeyahay waxyaan u soo joogay ee waayaaragnimo ururka anigoo soo maray gudoomiye ku xigeen hore isla markaana waaya arag u ah maraaxilka kala duwan ee ururku uu soo maray ayaa waxaan aaminsanahay waan jecelahay in la igu doorto daacadnimo iyo waayaarnimada aan u leeyahay ururka qaranada Soomaaliland dadka kale ila tartamayana aanay u lahayn ayaan aaminsanahay inaan kaga duwanahay oo la igu dooran doono haddii aan la yiraahdo wayahay doorashadii kulli wax yar baa ka hadhay adigii waxa ku tartami doona gabadh markaas ka tirsan ururka qaranada Soomaaliland si guud doorashadani way ka xamaasad doontaa doorashooyinkii kale maadaama qofka kula tartamaya ay haweenta bal iyada halka waxa weeye horta qaranadu waxa weeyaan waxay u badan yihiin ragna way badan yihiin ururkuna dimuqraadi xaqna way leedahay inay tartanto inantu balse maadaama ururka uu khilaafaadyo hore soo maray oo uu u baahay ururkun halka laga sii dhaqaajiyo waxaan aaminsanahay imika kuma haboona inantu oo wax badan oo xalin khilaafaad far badan baa ururku u baahan yahay marka waan ku faraxsanahay inanta lafteeda waan soo dhaweenayaa balse waxaan aaminsanahay in anugan ka mudanahay doorkan in aniga la doortay ka mudan iyadana sanadaha dambe dhisno haddii aan la yiraahdo way haddii aad guulaysato maanta waxyaabaha sileeday 3 sanaad xilka hayn doonto waad qaban kartaa waxaan ururka u horumarin doonaa inuu noqdo bar association Somaliland bar association ka qore ee jira imika waa soola balse sharciyan ayay wax ka dhimayeen ururka marka inaan dhameystiro bar association Somaliland in la helo rasmi ah oo laan laga maarmeyn looyaro kama maarmi karaan in bar association ay noqdaan marka waxaan ku dadaalayaa ururku inuu u horumaro oo u diga rogto inuu barka association of Somaliland noqdo sidoo kale waxaan rabaa inaan horumar iyo shaqooyin badan u soo kordhiyo dhalinyarta tababaro badan dhalinyarta u sameeyno mashaariic inaan degdeg u raadiyo iyadoo qaar badan ay imika dhow yihiin ba haddii la yiraahdo waxaan rabaa markaa in ururkan horumarin gaarsiin doono insha Allah